waxaan ka soo qayb galay tartan caalami ah oo Tanzania lagu qabtay anoo ku soo guuleystay kaalinta koowaad falillahi alhamd taasna ilaahay ayaan ugu mahadinayaa anoo u matalay tartankaas Soomaaliya madaxweynaha in xafiiskiisa uu soo dhaweeyo dhiirigelin oo ii sameeyo waxay iga caawinaysaa inaan tartamo caalami ah oo kan hadda ka duwan aan ka qayb galo si aan kuwaas ugu soo guuleysto madaxweynaha jaceelka oo quraanka jecel yahay waxay anaga noo sababaysaa in dadkii dhan quraanka ay jeclaadaan